Fahad Yaasiin Xaaji Daahir wuxuu dhibaato xoogan u wajahayaa sabab la xiriirta aqoonta uu u leeyahay Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha muddaxileedkiisu dhamaaday ee doorashooyinka dalka ku hogaamiyay taasi oo caqabad ku noqotay Villa Soomaaliya oo aan raali ka ahayn in dalka doorasho ay ka dhacdo. Siyaasadda Soomaaliya abaalka ma xiriirso haddii uu albaabka boos sare ku lahaana sanadihii la soo dhaafay waa la xiray qaanadaasi iyadoo ay gabagaba yihiin maalmaha nidaamkii hore ee ka talinayay Soomaaliya ayaa hadda waxaa la sheegayaa sida siyaasiyiinta ka sii haraya tareenka dowladda ay u sagootinayaan saaxiibadoodii shaqada ama ay iyagu iscafin dhexdooda isaga dalbanayaan. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ay maalmihiisu dhammaad yihiin wuxuu ku jiraa siyaasiyiinta dagaalka ba'an ka dhex fuliyay nidaamka dawliga ah ee Soomaaliya 10kii sano aynu ka soo gudubnay. waxaa la fahansan yahay in si weyn uu ugu ololeynayay in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo baxo doorashada dhacday 15kii May taasoo dadka qaar ay ka dhigayaan in dana gaar ah ay la xiriirto. Roble oo shalay u dhoofay waddanka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa inta uusan dhoofin wuxuu hadal ka jeediyay shirkii khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada dowladda federaalka kaasi oo aan dhowr bilood la qaban waxayna qaar ka mid ah kelmadihiisa abuureen hadalhayn aad u xoog badan. Roble wuxuu marka hore weeraray taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ka mid ah raggii sababta u ahaa inuu Roble ra'iisul wasaare ka noqdo Soomaaliya iyadoo la og yahay wixii dhex maray Fahad iyo Roble bilihii la soo dhaafay ilaa uu Roble gaarsiiyo Fahad inuu xildhibaan noqon waayo ayuu haddana mar kale wuxuu Roble sheegay in Farmaajo iyo isaguba shaqo fiican wada qabteen balse dhibaatadu ay ahayd milkiilaha oo uu la jeeday Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. 5 sano ee la soo dhaafay Fahad Yaasiin ayaa loogu yeerayay milkiilaha dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Roble wuxuu bogaadiyay Farmaajo wuxuu sheegay in howl fiican ay wada qabteen wuxuu ugu baaqay in la iswada cafiyo maadaama uu mar walba khilaaf ka dhici karo carabka iyo goosahana ay isugu dhow yihiin oo ay isqaniinaan. Roble hadalkiisa dadka midba dhinac ayuu la aaday oo uu fasirtay laakiin Roble ayaa muujiyay inuu yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shakhsi aan dhibaato ku ahayn dalka laakiin dhibaatada ugu xoogan ee hadda jirta ay tahay isla markaana dowladda ay ka shaqayn weysay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo uu tilmaamay in mar walba isaga iyo Farmaajo ay isfahmaan ay uu ka dhex shaqaynayeen.